khataraha iyo dhibka ku jiro social media. fawaa'idiisana inagoo soo sheegnay weliba. tan koowaad waxa ay tahay fatxu baabi اljadali الshayطaaniyi wa tashkiiki الnaas ama wa tashkiiki اlmuslimiina fi axkaami diinihim. qodobka koowaad waxa uu yahay waxyaabaha uu social mediahu aadka uga shaqeeyo qaarkiis waxay ka mid tahay inuu dadka ku furo albaab shaydaan iyo dadkii oo caqaa-idoodii iyo diinkoodii laga shaki siiyo iyo axkaamtoodii in laga shaki siiyo. yacni waa jadal shaydaani ah oo dadkii marka lagu dul furo oo dadka ay dhici karto inaynan diinta aqoonta badan u lahayn ama iimaankooda uunan xooga badnayn in ay diintiiba ka shakiyaan. arrintaana arrin marka berigii horeba waqtiyadii horeba jiri jirtay, waayo xilligii waxyiga iyo qur-aanku uu soo degayey markay soo degtay qowluhu tacaala walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llahi calayhi, wixii aan ilaahay magaciisa lagu sheegin ha cuninina. aayaddaa markay soo degtay wixii aan bisinka lagu gowricin oo aan la qalin yaa la cunin markay soo degtay mushrikiintii waxay yidhaahdeen shaydaankoodiibaa u waxyooday muxamed wixii isaga uu dilana ha la cuno ayuu leeyahay, wixii alla dilana yaa la cunin buu leeyahay bay dhaheen. waayo neefkan iska baktiyey allaa dilay, midkan isagu uu dilay oo gacantiisa ku gowracayna ha la cunuu leeyahay. bal arrintaas ka warrama. dadkii bay marka saa ugu soo dhex faafiyeen arrintaas. alla marka wuxuu yidhi isagoo ka warramaya arrintaa walaa taakuluu mima lam yudkar ismu llahi calayhi wainahu la fisq waina ashayaaiina layuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun. haddaad kuwaa doodooda aada u dheg raaricisaan ood raacdaan ood adeecdaan idinkii diinka ilaahay waa ka baxaysaanoo mushrikiin baad noqonaysaanoo waxaad la imaanaysaan shirku taaca oo ilaahay keliya in laga dambeeyo wuxuu idinku xukumo inaad qaadataanay ahayde markaabaa intaad ka baxdaan ayaad shaydaan adeecaysaan. dooda noocaas oo kale waa jiri jirtay in lagu furo aslu diin towxiidka ama axkaamtii iyo xikmada rabbi subxaanahu watacaala in lagu furo yaa jiri jirtay. tii oo casriyeysan oo habaysan ayaa waxaa lagu gudbiyaa iyaduna warbaahinta ama qaarkood ilxaadka laga faafiyaa. dadka qaarkood ilxaadka iyo jiritaanka alle oo la inkiro oo la diido ayaa laga faafiyaa qaarkood. taana marka waxay dhalinaysaa ama ay keenaysaa dad badan inay diinkii ay dhici karto inay ka fidnoobaan oo ay markaa fidno ay u horseedo. allah subxaanahu watacaala wuxuu yihi fi suurati اlancaam wakadalika jacalna likuli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waaljini maxay sameeyaanna yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruuraa. hadalba hadalkuu ka qurux badan yahay bay ay ku baahiyaan baatilkooda. marka dadkii qaarkood buu marka u quruxsamayaayo walitasqaa ilayhi afidat aladiina laa yu'minuuna biاlaakhira waliyardowhu waliyaqtarifuu maa hum muqtarifuun. ayb haddii marka waxyaabahaasi aan laga hortegin oon looga hortegin bilatii hiya axsan wax badan bay marka galaafo kartaa ama ay dhibaatooyin fara badan bay la imaan karaan. nadariyaadka marka ilxaadiga ah oo diin la-aanta ku dhisan oo maanta tacliinta qarbiga ama galbeedka hab waxbaridoodu ay ku salaysan tahay oo ay maanta iskuulaadkii hoose iyo kuwii yacni dhexe ayaa waxaa ka buuxo oo yaryarka ama dadka da-da yar laga buuxiyaa shubuhaad intaas la eg oo madaxooda ka weyn ayaa oo jiritaanka alle iyo lagu shaki gelinayo ayaa sidaa loogu baahiyaa. tii haddana waxay usoo tallaabtay warbaahintii bay usoo tallaabtay. markaa ayay waxay sababtay hadmi fara badan iyo dumin badan iyo dhib fara badan ayay dadkii yareera diinkooda ku keentay. haddii marka intaa iyo ay isbiirsadaan laba arrin, waalidkii oo aan arrintaas daweey karin
iyo meeshii ardayda qur-aankii ama diinta lagu baraayay oo aan ka jawaabin iyagana tasaa-ulaadkaas iyo nadariyaadkaas theoriskaas iyo aan ka jawaabin waxaa ka dhalanaya marka da ilmuhu inay cidlo u noqdaan ilxaad iyo diin la-aan inay cidlo u noqdaan. arrintaana marka waxay u baahan tahay dadka galbeedka joogo waxay ka rabtaa daweyn iyo dadaalay ka rabtaa wax kaleba intaan la gaarin. waayo ardayga iskuulka markuu dhigto waxaa loo sheegaa nadariyaad ku dhisan diin la-aan ku dhisan. weliba midda marka taas marka la sheegayo waxaa dhici karta in aada loo bayaaniyo, aada loo xujaj iyo halkaa looga keeno baraahiin iyo xujaj. marka ay tagto la rabo in loo sheego diimuhu waxay qabaan ama diinta islaamkuba waxay qabto, waxaa laga yaabaa in hal daqiiqo lagu sheego oo la yiraahdo oraah kalena waa jirtaayo sidaas iyo sidaas dhehayso, nadariyo kalena waa jirtaayo ilaah inuu jiro dadku aadam ka yimaadeen iyo taasna waa jirtaa. tii hore marka waa la taxliiliyey, midaanna hal daqiiqa lagu dhaafay oo lagu maray. hadday ku darsanto weliba mararka qaar waxaa ku darmo taasi ilxaadku waxyaabaha uu aada ugu dhisan yahay zamankan waxaa ka mid a dadku waxay jecel yihiin wax allaale wixii dookoodu oo u sheego qofku inuu isticmaalo ama uu yiraahdo ama ku dhaqmo uu jecel yahay. ibaaxinimada wax walbaa ee noloshiisa raaxa oo u arko inuu iska samayn karo. markaasay waxay leeyihiin mulxidiintu war waxaanoo dhan oo ku dhahaya waxaas ma bannaana, waxaas ma bannaana iyo waxaas waa bannaan yihiin iyo taasi waa kayta wakayta, waxaas aada arkaysaan oo dhan waxyaabahaas faraha badan waxaad arkaysaa waxay leeyihiin shaygaas ma bannaana iska ilaali, waxaas waa waajib sameey. naftu waajibka inay samaysana waa ku adag tahay, xaaraantana way u muhanaysaayo waa rabtaa naftu. waxay leeyihiin marka waxaan sameey iyo waxaan ha samaynin diin unbaa kuu sheegayso, diimuhu unbaa waxaas ay ku jiraan. marka maxaa diin iyo dhibkeeda iyo culayskeeda iyo sameey iyo ha samaynin, shahwadaada waxa hortaagan waa diin bay ka dhaadhicinayaan. haddii marka diintu inay meesha ka baxdo marka waa iska rabaa qofka shahwaaniga oo ibaaxiga ah wuu iska rabaa inay meesha diinta ka bixi lahayd. marka waxaa kulmaya wixii naftiisu jeclayn iyo in diintii iyadu ka hortaagan, ilaa mafsada iyo dhibay u tahay. wuxuu arkayaa marka qof diintii meesha ka saarayo waa u riyaaqaya, waa jeclaanaya. in badan dadka ilxaadka iyo diini ma jirto iyo ilaahay ma jiro, in badan waxaa ku keenaya waxaa u badan shahawaadkooda oo ay rabaan iyo diintii oo ka hortaagan shahawaadka la yska raacayo. waxyaabaha dhan markay kulmaan khatar waxay keeni karaan marka suu-u dannin billaahi tacaala, ilaahay in malada loo xumeeyo, diintii in malaha loo xumeeyo. waxaa aada social media madaahirta aadka u daran ee ku jirta ka mid ah waxyigii in la inkiro. markaan leeyahay waxyigu waa la inkiraa waxaan ujeedaa imisaad maqlaysaan dhahaya xadiid ma jiro, yaa og waxaan in nabigu yidhi sal l slam iyo in kale waa sheeko xariir waxyigan bukhaarigan iyo muslimkan la sheegaaye iyo maxaan sameynaa qur-aanka keliya aan qabsanno. qur-aankii isagiibaa ku dhahaya nebiga tacaaliimtiisa qaado. qur-aankii waa mujmalo wuxuu ku leeyahay salaada tuko, salaada subax inaad laba tukanaysa ragco kuuma sheegin qur-aanka. haddii marka meeshii laga bixiyo waxyigii qeyb dhan oo waxyiga alle nebigiisa kusoo dejiyey ka mida laga saaro, waxay tahay marka waa diin la-aan iyo diin dumin. qeyb kale sharciga ilaahay iyo axkaamtii shareecada ayaa lagu inkiraayo lagu jees-jeesaa oo intaas shubah lagu furaa, ama ha noqoto cuquubaadka sharciga ah ama sida sharcigu u qoondeeyey axkaamta, oo ilaa marka ay samaysmeen hay-ada marka xuquuq baan ka hadlaynaa dhahayo oo haddana diintii islaamka un qallooc u raadinayo oo haweenkii iyo caruurtii iyo dadka ahlu macaasida ah xuquuqdooda iyo dad u taagan, oo iyagu waxaa jira marka diintiibaa xuquuq tirtay dhahayo oo markaa yacni xorriyaddii waxaabaa la soo celina. kulli waxyaabahaas oo dhan waa madaahir ama muuqaallo social mediahu wato oo khatarteedana iskale. madaahirta aadka u daran ee uu leeyahay waxaa ka mid ah ummadda
inaan dadka la kala soocin oo aan ummadda loo kala soocin qofka wanaagsan iyo qofka xun. waa inaga diinteenna qur-aanka aasaas u ah iyo sunnada. qur-aanku waxaan arkaynaa mar walba waddada toosan iyo waddada qalloocdaba waa ka hadlaa. waddada toosan dadka maro iyo midda qalloocan dadka marana waa ka hadlaa. mar kalena abaalmarintoodu ka hadlaa. ninkii waddada toosan maray waxa lagu abaalmarinayo adduun iyo aakhiro, waddada qalloocan midka maray waxa lagu abaalmarinayo adduun iyo aakhiro. intaas muxuu qur-aanku u sheegayaana dadku inaynan iskaga darmin, qofka rabo inuu xagga alla u socdo in uunan waynin oo uunan heli waayin dariiqii toosnaa. waayo haddii qof fiican iyo qof xun aadan kala garanaynin, saaxiib iyo cadow aan la kala saarin, waddadii naarta iyo tii jannada aan la kala saarin, macnaheedu waxay tahay dadku mugdi ha ku jiraan. waa dad uun marka mugdi ku soconayay noqonayaan. allana muxuu yihi subxaanahu watacaala wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin. muxuu ilaahay aayaadka u kala cadaynaa oo u kala dhigdhigaana sidaas buu u kala dhigdhigayaa, wuxuuna u yeelayaa in waddada dadka mujrimiintu ay caddaato, bannaanka ay yimaadaan. allah subxaanahu watacaala markuu yidhi yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah. alimaam abu jacfar atabari wuxuu yihi aayaddaa tafsiirkeeda macnaha aayaddaa iyo aayadihii ka horreeyey say isugu xirmayaan waxay tahay buu leeyahay, suuraddu waxay ka soo hadashay yahuudi iyo qaabdaradooda say ballamaha alle uga baxeen, sida ay u qariyeen wixii ilaahay baray ee xaqa ahaa inay qariyeen. waxaa kaloo ka waramay in xumaantii inay iska reebaan inay ka tageen. wuxuu ka waramay intay iyagu wax dhoodhoobteen inay ku tilmaameen ilaahay sharcigiisa inuu yahay. intaba suuratulmaa-ida waa looga hadlay. markaabuu wuxuu leeyahay alimaam abu jacfar aayadda markuu fasiraayo macnaha waxaa laga wadaa kuwa ahlu kitaabka ah ee yahuudda qabaa-ixdooda iyo foolxumadooda iyo xumaanta ay ku kaceen iyo yacnii dariiqa xun oo ay mareen iyo meeshuu ku dambeynayo dadka u sheeg, ha ka qarin. ilaahay subxaanahu watacaala isagaa kaa ilaalinayo dadka, wallahu yacsimuka min annaas. haddaad iska aamusto oo kuwa xumaantooda shib laga dhaho oo iyaga iyo xornimadooda loo daayo oo dadkii diinta rabay inay fahmaanna la yidhaahdo war waxaad yeeshaan iska daaya, cidna laga hadli maayo, cid walbaa waxeeda ha wadata marka la yidhaahdo, de qofkii rabay inuu wanaagga ku dhaqmaa wanaag ma arkayo. wanaaggii marka fa bididdiha tatabayanu lashyaa, ashyaadu waxay ku caddaadaan shayga didkiisa marka lagu sheego ama shayga liddiga ku ah marka lagu sheego waad garan karaysaa. waxyaabaha marka warbaahintan aadka u daran oo ay u taagan tahay waxa ay tahay mujtamacaani in mugdi iyo wareer looga tago oo aan la kala garansiinin qof xun iyo qof fiican, saaxiib iyo cadow aan la kala barin, oo ummaddii marka uun dariiqadii qur-aanka ayaana taa ay khilaafsan tahay. allah subxaanahu watacaalana meelo badan wuu ku tilmaamay oo ummaddan waa loogu kala saaray dariiqa shaydaanka iyo dariiqu raxmaan. waxaa ka mid ah madaahirta ama muuqaalada raadkeedu uu maanta joogo qalbulxaqaa'iq, xaqaa'iqda in la gediyo dadka indhahooda, xaqaa'iqda rasmiga ahee jira in la dabagediyo. waxaana taa marka ka mid ah calaamaatu saaca, qiyaamaha marka yani ay soo dhowaato, calaamadaha qiyaamaha waxaa ka mid a xaqaa'iqdu inay isbedesho. qofkii daacadda ahaa khaa-in in loo arko, qofkii khaa-inka ahaana qof daacad ah in loo muujiyo. dad aan ahal u ahayn inay hadlaanna inay ummadda u hadlaan ay u horeeyaan. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy xadiid ibni maajah uu wariyey, ina bayna yaday saacati sanawaatin khadaacaat. saacadda qiyaamaha waxaa ka soo horeeyo sanado dadka aada u dhakro, sanado dadka khiyaano oo dadkii marka madaxa iyo majaha iskugu rogayo. maxaa sanadadaa la sameeyaa? yukhawanu fiihina alamiin wa yu'tamanu fiihina alkhaa-in.
sanadadaasi waxaa la amaaneystaa oo lagu ammaano xugmiyaa qofka khaa-inka ah. khaa-inkii yacni qofkii daacadda ahaana waa khaa-in baa yaa tahay baa la yidhaha lagu xukumaa, waxba lagama dhegeysto. wa tandiqu fiihina aruwaybidatu, sanadadaa wuxuu yihi nebiga waxaa hadlo dadka wax magaradka iska ah ayaa hadlo. hadda social mediahan ma jirin waqtigii nebiga uu sidaan sheegaya, laakiin hadalkiisu waa sidqi iyo run buu ku dheehan yahay nebiga sal ll ly slam. maanta hadda yacni meelahan hadda social median ama facebooka wuxuu mimber u yahay, qof kastoo mimber waayey buu mimber u yahay. nacam, kuwa xataa caqliga looga jiro way ka hadlayaan, kuwa iyagii in la haga ay ahayd waa ku hadlaan, ka dhex hadlaan. yacni qof kasto aayarunbuu intuu soo fadhiisto ayuu ishordhigayaa, smartphone-ku saa isu hordhigayaa, wuxuu doonu iska sheegaa, cidi kama cabsado, mowqif alla ma yaqaano. waa qofkii ay ahayd war adiga sidan kuuma habboonee sidaad u noolaan lahayd iyo waxa kuu wanaagsan ha laguu sheego ma ogolaanayo. markaasaa nabiga la su-aalay sal l slam, waxaa la yidhi watandiqu fiihina ruwaybida, wama ruwaybidatu yaa rasuul allah, ruwaybidadu waa ayo? markaasuu wuxuu yihi alrajulu taafihu yatakalamu can amri lcaama, waa nin dhulyaal iska ah oo aan aqoon lahayn, waxna aan ogeyn, xagga ra'yiga nin dhul yaalla ah. xagga ra'yiga iyo maskaxda iyo maanka ayuu wuxuu ka yahay qof dhulyaal ah. yatakalamu can amri lcaama, wuxuuna ka hadlayaa umuuraha guud, umuurihii guud, masiirkii ummadda, masiirkii diinta, masiirkii dalka, kulli waxaa ka hadlaya marka qof noocaas oo kalea ka hadlaya. waa marka qiyaamuhu soo dhowaado, qof walbaana in loo fasiro ama wax badan in looga sheego uma baahna, laakiin wixiiba waxaa kasii daray oo inay arrintaa dhacdo ilaa ilaahay markuu shay qadarayo asbaabteeda waa u diyaariyaa. in allaha tacaala idaa qadara shay-an, ilaahay hadduu shay qadaro haya-a lahu asbaabahu. asbaabtii marka waxaa ka mida miidyahan sidaan noqday baa ka mida. ilaa ninaan bal la gara lahayn ama aan la aqoonsan lahayn, waxaa lagu aqoonsanayaa waa un isaga. sidii marka ilaahay qadaray baa imaanaysa marka. ayb, mithaal aada iyo aada yani kale ama dhowr mithaal markaan soo qaado, qalbulxaqaa'iqa waxaa ka mid a dadkaa nebigu uu leeyahay waa ruwaybida, in ummadda iyaga loo soo hormariyaba oo la yidhaha idinka umuurihiina kuwan baa ku habboon, dadkan baa marka umuurihiinii wadayo, iyadoo la isticmaalayo marka duruq yacni aada iyo aada u faashil ah. amhilo dhowra haddaan soo qaadano waqtiyadan ama waaqiceenna dhow, ama midkii wax yar uun ka horreeyay haddaan usoo qaadano, yacni sheekh maxamuud maxamed shaakir risaalo uu qoray baa wuxuu kaga sheekeeyey taariikhdu marka ayd 1200 iyo xoogaagii meelahaas ayaa waxaa dhacday masar xilliyo ayaa waxaa jira ilaa 3 sano meelaha ayaa waxaa kusoo duulay ciidan faransiis oo naboleon ka amar qaato ayaa kusoo duulay 3 sano ay masar haysteen. dadweynihii marka way dagaalameen markii dambe waxay ku dhammaatay in faransiiskii meesha uu ka baxo. wuu ka baxay isaga, laakiin hab kale ayuu haddana usoo galay oo ugu jiray. dadweynihii dhowr sana loo kaadiyey, markii dhowr sano loo kaadiyey oo loo sugay, iyagii ayaa marka iskhilaafay dadkii reer masar. nidaam iyo talo iyo wax wanaagsan waa heli waayeen. markay waayeen ayaa waxaa loo keenay nin magaca iyaga uga eg laakiin aan u qalmin, maxamed cali baasha, maxamed cali shirshima baasha nin la yidhaahdaa loo keenay, xagga iyo turkiga laga keenay. ninkaa markii uu ka hadlayay taariikhdiisa nin aqoon iyo cilmi soo maray ma ahayn, bal 35 sano ayuu wuxuu kusoo gaaray umminimo, inuunan waxna aqri karin waxna qori karin. ummad dhan oo cilmi badan oo ashar 1000 sano taqriiban ashar, yani iyadoo marka waqti dheer jirtay ashar, ummaddii ashar ay ku dhex taallay, culimada lahaa ee aqoontu ay ku badnayd, ilbaxnimadu haystay,
ayaa ninkaa loo keenay, iyaguna waa iska aqbaleen. ilaa dadku hadday iyagu isnacaan cid walbaa waa iska aqbalayaan. isagii markii loo keenay ayuu muddo u talinayay, taladooda isagaa maamulayay, halkaasay ka socotay ilaa iyo maanta lafteeda magacuu ku leeyahay meelahan. yaa u yeelay marka ninkaa, yaa ka gaday? waxaa uun ka gaday marka iclaan ama yacni ka badbadin aan sax ahayn oo ninkaa laga badbadiyey, wax uunan ahaynna laga dhigay. sidoo kale nin kale ayuu sheegay oo isagana misri ahaayo yacni ashari ahaa, la dhihi jiray Rifaaca Tahtaawi. isagana waxaa loogu talagalay faransiisku muddo markii uu kasii maqnaa ayuu haddana khidbo kale keenayo waxa uu yidhi dadka ha la qaado faranse waxa lagu soo baro. markii dambe wuxuu yidhi waxaan u baahannahay dad ashariyiin oo ashar ka baxay oo salaadaha tujiyo dadkaas intay ku maqan yihiin faranse. ninkan marka Rifaaca Tahtaawi oo dhowr iyo 20 jir oo nin baadiye ka yimid ahaa, dhulkan saciidka aadka u fog ayuu ka yimid, asharun buu dhigtay. nin ilbaxnimada iyo nalalka hadduu arkaba ay la weyn tahay buu ahaa. ninkii baa la qaaday, Baariis baa marka dig lagu siiyey, la dejiyey. Baariis markuu ka degay baa 3 sano meelahaasuu jiray. markaasaa waxaa lagu soo celiyey Masar isagoo intaas oo alqaaba la siiyey. waxaa la yidhi ninkan 3 sano wuxuu bartaa la yidhi luqadaha, caskarinimo, taariikhda, juqraafiga. 3 sano intaa ma lagu baran karaa? xataa wax 3 sano lagu baran karo oo takhasuskeeda lagu yaal dhowr takhasus ayaa waxaa la yidhi ninkan waa kusoo takhasusay, waa nin wax bartayoo sidaa ashariyiintii dhammaa isagaa afka ku shubtay. madrasou furtay, madrasati alsun la yiraahdo, luqadaha iyo waxa uu ku dhigo. isagii baaba marka inta la dallacsiiyey looga dhigay marka huwa wax kasta inuu yahay. marka waa madhar min hadihi lmadaahir ah. qof yacni aan taariikhdiisii la aqoonin, laga yaaba innaga lafteenna wayna haysataa mar walbo, waayo miidiyahaas iyo social mediaha ama waxaan kale warbaahinta unbaa dadka lagu qiimeeyaa. hebel waa aqoon-yahan, hebel waa saas, hebel waa daacad, hebel halkaanu ka baxay. waxaasoo dhan marka ninkii dhowr maalmoodba miidiyaha ku jiro wuxuu isu bedelayaa hadduu xataa khaa-in ahaa. haddii ummadda dadka yaqaano ay yidhaa war ninkan ha ku kadsoominina, haddii la yidhaha dadku ma maqlayaan, ma yeelayaan. dhaladaas wixii laga tuso oo ay ka arkaan unbaa marka muhim u ah. madaahirtaas iyo madaahir fara badan oo noocaas oo kale ah ayaa jiro. madaahirta uu wax ku dumiyo waxaa ka mid a warbaahintu. innaga yacni islaamku hadallada wuu kala xadiday. waxyaaba waxaa jiro ay wax allaala wixii ka dhalanaya dagaal ama amni oo ka dhalanayo, ummadii markay meel degan tahay dadkooda ahlulxalli walcaqdiga u ah ee taladooda ay gacanta ugu jirto inay soo dhaafta ma aha. meel walba in lagu falanqeeyaa ma saxsana. social mediau dadku wuxuu ku dhiirigeliya wax kastaba inay dadku ka hadlaan. shay ma jiro dadku aynan ka hadlin ilaa ma ahane dadka ahluxalli walcaqdiga un maaha ma leh. wax kasto waa un la falanqeynayaa, isagaana dadka ku dhiirigeliyey waxaas. xuriyatul qowl magacaasaa lagu sheegaa. allana wuxuu leeyahay waidaa jaaahum amrun min almni aw ilkhawfi adaacuu bih walow raduuhu ila alrasuuli wailaa uli lmri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum. waxyaabaha qaarkood baa dadka inay meelaha lagu baahbaahiyey qof walbaa ku hadlo aynan habbooneyn. dariiqadaas ayaa marka qof allaale qofkii marka doono uu ku hadlaa waxyaabahaasuuna marka ummaddii uu ku dhibaateeyaa. madhar kale ama muuqaal kaloo aada u badan waxa ay tahay dadku waxa ay sheergareeyaan. dadku waxyaabaha ay sheergareeyaan, maalan qofkan facebooka waxbuu boost garayna ama qoraal ama hadal uu duubay oo kale u boost garayna. waxaa laga yaabaa waxaasi inay yihiin wax dembi ah oo aada u foolxun. dadka 2 nooc waaye, qeybna hadda xumaantii bay rabaanoo waa faafinayaan. ninkii faafiyey wuxuu la xugun yahay ninkii yiri waxa ma dhaamo xagga dembiga. qeyb kalena halis kaley sameeyaanoo iyagoo wixii ka xun oo aan jeclayn
oo iyagu markaa isdhahayo bal dadku ha arkaan ninkan inuu xumaantan sheegay iyagoo isdhahayo ayaa uu sheergaraynaa. markaa uu sheergareeyo de dadka isaga ugu jira meesha saaxiibada la-ah kuwo waxaa jira iska caamo oo wixii aan fahmi karinoo markay arkaan wixii shubho ama shaki gelin karo ama khatar gelin karo. marka qofku haddii uu arko wax noocaas oo kale inuunan sheergaraynin xataa waxyaabaha aan aada ula yaaba waxaa ka mid a qaar baa waxay sheergaraynayaan musxafkii qur-aanka oo nin uu lugta saa u saarayo. qaaraa sheergaraynaya waxaas maxay ka wadaan iyaga war arka sida musxafka la yeelayo, laakiin waxaasi inaad adigu ka qeyb qaadato muuqaal noocaasa dadka inaad tusto yaaba wax xun a lafteeda oo aan bannaanayn. haddii aada is leedahay qof wax ka qaban karaa jiro inaad si gaara isaga ugu sheegto war qofkan waxaasuu sameeyaye ka celi inaad tiraahdeed, laakiin maaha inaad adigu hore u qabato. madharka kale waxa uu yahay ugu dambeeyo dadka faallooyinka ka bixiyo comments ka bixiyo. waxaad arkay qof aada u jeedid waxa uu sheegayo inay wax ama been tahay ama dad isku dirid ay tahay ama ay tahay diintii uu meel uga dhacayo, oo waxaad arkaysaa commenti laga bixinayo hal qof oo naqdinayo waxaa dhici karta mararka qaar inaadanba ku arag. weliba waxaa aada u badan shaygan qof laga soo sheegay ama waxaan uu meesha kusoo boostgareeyey horta wax dhaba oo jira ma yihiin mase maahan inaad hubiso wayn intaadan faallo gelin. waayo nabigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi kafaa bilmar-i kadiban an yuxaditha bikulli maa samic. qof been waxaa ugu filan wax allaale wixii uu maqlo inuu sheego. wax allaale wixii aada maqasho inaad sheegtaa been kugu filan. qof baa maalan qof wax ka sheegay, qof baa marka dad ama koox buu wax ka sheegay, halkaasuu soo dhigay ama dhacday waxbuu ka sheekeeyey. dhacdadii adoon hubinin isla markiiba inaad ugu dhaqaaqdo faallo iyo commentigaa wuxuu ka tarjumaa waxaa inaad rumaysatay marka hore. waxyaabaha qaar la rumaysanayana khatar diini ahaabuu ku jirtaba. khatar diini ah ayaa ku jiri karto. qofku marka waxa uu faallada ka bixinayo lafteeda iyo hadalka uu ku hadlayo inuu iska hubiyo tathabut uu ku sameeyo. waayo alla wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaaءakum faasiqun binaba-in fatabayanuu wafii qiraa'atin fatahabatuu. in la hubiyo haddii marka qofku uu yahay qof hiqa ah lagu kalsoonaan karaa in markaa yani warka uu sheego waa la rumaysan karaa. laakiin maanta social media maxaaba la rumaystaa waxaan qofka meesha soo dhigayba maba taqaanidba adiga waxa uu yahay maba garan kartidba. magac uusan lahayn uu kusoo gelayaa. qof aada hiqo ku taqaanay oo qof fiican iyo qof wanaag aada ku taqaanay ayaad arkaysaa isaga oo magaciisa la isticmaalayo, qof kalaaba iska isticmaalaya. waxaa dhici karta marka adigii inaad istiraahdo qofkaasi hebel waaye qofka hadalkan qoray, hebelna nin fiican buu ahaa, maxaa ku dhacay qofkaani? war ninkii say ka noqotay nin baaba magaciisa isticmaalayo sawirkiisana soo saartay meesha. walidaalika marka wuxuu u baahan yahay social mediahu ta-ani badan in laga sameeyo. qofkii wax wanaagsan ku qoro ee isagu ummadda wax uga sheego ka wacdiyo, xumaanta ka reebo waa fiican yahay. laakiin qofkii si duuduub ah u qaato waa loo cabsadaa, halis aada iyo aada u daranna waa ku jirtaa. ugu dambeyn madaahirta ama muuqaalada ugu xun ee bahalkan uu wato waxaa ka mid ah caadaadka ummadaha. marka laga hadlayo caadaadka ummadda ee diinta khilaafsan in aada loo buunbuuniyo waa lagu buunbuuniyaa social media. caadadeennii iyo dhaqamadeennii diinta waafaqsanaana ma lagu sheego, bal waxaa laga yaabaa in loo arko jajuub iyo xuriyad ka qaadid iyo in lagu fasiraa laga yaabo. hadda maalan waxaan aragnaa mararka qaar heesaha, muusiga, waxyaabaha sidaas oo kale ah. waxaa la leeyahay marka ummaddii dhaqankeeda iyo dadka waxaa ku howlan in dadka aada ummadda ku ugu horeeyo looga dhigo.
baynamaa dadkii ummadda diinkoodii iyo khayrkii iyo wanaagga ku lahay u sheegayay waxba aan laga dhigaynin. laakiin qofkan hadduu u bato qof ahlu macsiba iska ah in dadkii loo soo hormariyo loo buunbuuniyo macno weyn loogu yeelo, ta kale caadaadkii iyaguna diintii islaamka khilaafsanaydna in ummadii looga dhigo tana caado idiin ahayd ku dadaala qabsada sidaas la yidhaahdo. kuwii fiicnaana laga celiyo xishoodka ku dhisan. haweenka soomaalida maalan, dhaqanka soomaalidu xishoodku wuxuu ahaa mid xagga hore kaga jiro ahaa, indha adkaanta iyo xishood dariduna ma qabi jirin haweenka soomaalidee hore, dhaqan annaga nooma ahayn. xishoodkaa ma la dhiiri gelinayo, waxaa la dhiiri gelinayaa cagsigiisa. dhaqankii soomaalidana waxaa laga soo qaadanayaa meel allaale meeshuu diinta ku khilaafsan yahay. sidaana ma ahan sidaa in la yeelana. waxaa kaloo inta qodobkaas marka waxaa kaloo soo gelaya qodobkaa laftiisa, waxaa aada lagula dagaalamaa luqadii sharciga in islaamka luqaduu leeyahay. luqatu shariica maxay tahay? waa luqada carabiga. alluqatu alcarabiya waa luqatu shariica. shareecada luqadda ay ku hadasho waa carabi. qur-aankii carabi aan ku akrinaynaa, soomaali kuma akrino iyo af kale, in uun qofka loo fasiraayo wax kale wahay. laakiin marka qur-aanka ilaahay kalaamkiisa lagu cibaadaysanayo akrintiisa carabi baan ku akrinaa. dhinaca kale haddana waxaa jiro marka qofka uu islaamku soo gelayo ama uu salaadaba rabo inuu tukado wuxuu ku ashhaadanaya waa carabi. faatixada carabi buu ku akrinayaa. ummaddan marka luqadeeda marka la fiiriyo luqada carabiga, dadka muslimiintao dhan luqadoodii waay. ama ha yaqaanaan ama yaynan aqoonin, waa arin kale aqoonistu. laakiin dadkii in aada loola dagaalamo luqadaas oo xarbi daruus ah oo aada u daran lagu bixiyo, luqaadka kalena aan la sheegsheegin. weliba wadanka gudihiisoo kale marka la joogo waxaad arkaysaa dad dhahaya af soomaaliga maxaa daciifiyey, carabigaa daciifiyey kuleeyihin. waayo luqadii soomaaliga usbuucii 2 xiso ama 3 xisaa la siiyey, carabigiina luqado badan maadooyin badan buu ku baxaa. maadooyinka ay sheegayaan marka waa fiqhigii iyo xadiidka iyo tawxiidka iyo taariikhda iyo maxay ku bixi lahaayeen kuwaas awalba. luqaadka kale sida ay luqada soomaaliga usoo ciriiriyeen wax ka hadlaaya ma arkaysid. wadanka waxaan ku arkaa dad ilmo yaryaroo 7 jir 8 jiroo sawaaxili la barayo. sawaaxili inaga dhaqankeena ma sawaaxiligii wax ka doodaya ma arkaysid. markaad war ilmahan maxaa sawaaxili loo baraya, kenya u socdaayaa la leeyahay. iskool uu ka geli rabaa luqadii sawaaxiligaa la bara. wa fii nafsi lwaqti wuxuu leey luqadan carabigaan nacnay maxaa nagu watuu leeyahy luqada carabiga. waa zandaqa arrintaas oo kale, waayo dadku inaynan diinta fahmin weeyaan ujeedada. soomaaligu dabcan waa luqadeenna, waa ku hadalnaa. ilmahana in la baraa way tahay si dhaqankiisa iyo dadkiisa iyo qaraabadiisa uu xiriiriyo. waa in gacan la siiyo waa tahay. laakiin soomaaliga gacan ma siin karna miya? inagoo carabigii luqadii diinta aan ku fahmaynana anagoo baranayna waa sii karnaa. waayo inta soomaali la bartaa ingiriisna la bartaa. carabiga keliya limaada? dagaalka luqada carabiga limaada isaga shaydaanaa ku jira marka meeshaas aada ugu qurxinayo, aadna ugu macaaneynayo. waxaa la yaab leh dadka qaarkood, bacdi naas oo waxaa aada ula yaabaysaa haqaafadoodu carabi tahay, diintii soo bartay, haddana inay carabnimada ama luqada carabiga inay aada geeska ugu riixayaan, ay u haystaanba inay ku habsaameenba. ilaahan ka magan galnay waxaa waaye luqada carabiga in la barto, qadar lagu tawxiidsado, salaada lagu tukado, waajib waay qadarkaas. wixii ka badan qofkii raba inuu kalaamka alle fahmana waa in luqadii uu kusoo degay uu la yimaadaa. mana aha luqad qowmiyad leedahay, ma aha carabiga, ha u arkin sidaas. waa ka ballaaran yahay luqada carabiga, qowmiyad waa ka weyn yahay. walidaalika a'imadii islaamka oo kala duwanaa, alimaamu albukhaari maanta haddii ninkaan aqoonin dhalashadiisa iyo taariikhdiisa,
haddii uu arko raadka iyo turaadka imaamulbukhaari uu ka tegey wuxuu isleeyahay waa carab wax kale ma isdhahayo waayo wixii uu qoro dhan luqad carabiya uu ku qoray ummadda islaamka waxay ahaan jireen iyagoon la qasbin diinta islaamka markay qaataan luqada carabigana waa la qaadan jireen qasab ma aha lama qasbi jirin mana lagu dhibi jirin iyaga can dawaaciyatin bay u baran jireen innaga lafteenna intii luqada carabigu nagu badatay fahamkii diinta waa un lagu soo dhowaanayo hadday bacdi naas qaladaad ku kaceen oy diintii qalad u fahmeen de diintu keliya maaha luqadda carabiga bis in la fahmo maaha waa in axaadiidtii qur-aankii habkii marka wax loo baran jiray in loo bartaa wax kala waay laakiin dembigu luqadda ma aha haddii dhibaato ama qalad uu jiro luqada ma ahan dembigu luqada carabigana marka inaan marnaba yacni waxyaabaha madharkeeda lagu fool xumeynayo ama yacni dadka looga fogeynayo diintooda qeyb ka mida weeyaan waxaana aada loogaga qeyb qaataa laguna faafiyaa miidiyaha cadowgana aada u isticmaalo marka waxyaabahan social mediahu waa un laba af leh qofkii dhanka wanaagsan u isticmaalana xadiidkii aan ku bilaabay dee ilaahay raalli ahaanshihiisuu ka kasbanaya qofkii dhinac xun u isticmaalo ama isagoon iska fiirinin meel xun ula dhaqaaqana isaguna naartii ayuu ku gelayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi waasxaabih